وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص التي دلت على الله الجليل. قصص تجلت حبكة تالله ليس لها مثيل. تالله ليس لها مثيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وانساب مثل السلسبيل. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واتحنيني نوصل سعلي maanta waxaynu bilaabaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo qisadii nabiyullaahi nuux calayhi salaam. aabaheen aadan wuxuu ahaa nebigii ugu horreeyey ee lasoo diray, ilmihiisa ayuu nebi u ahaa oo khayrka iyo wanaagga u gaarsiinayay. baynamaa nabiyullaahi nuux calayhi salaam wuxuu ahaa nebi haddana rasuul ah. ummadihii adduunka joogay markaa isaga ah qofkii loo soo diray buu ahaa, gaar ahaan qoomkiisii iyo tolkii uu ka dhashay. nabiyullaahi nuux calayhi salaam waa ambiyadii ilaahay soo diray, nebigii ugu horreeyey weeye, rasuulkii ugu horreeyeyna weeye. rasuulkaas oo u dulqaatay dhib fara badan ay kula kaceen tolkii iyo qoomkiisii iyo dadkii loo diray ee layidhi xaqa gaarsii. nabiyullaahi nuux inuu rasuul alle yahay waxay ku caddahay qur-aanka alle ku caddeeyey. waxaa kaloo nebigu ku caddeeyey xadiidkii dheeraa ee shafaacada ahaa markii banka qiyaamo la yimaado oo qoraxda dadka loo soo dhoweeyo, dadka calaacalaan rafaadaan bay waxay sameynayaan aabeen aadan bay u tegayaan. markaasuu aabeen aadanna wuxuu leeyahay nuux calayhi salaam ha loo tago. haddaba nuux baa sidaa loogu imaanaya oo halkaas ay ka caddahay rasuulnimadiisa, xadiiskaasna ay ku caddahay, qur-aankana uu ku cadyahay. muddadii u dhexaysay nabiyullaahi aadam calayhi salaam iyo nebi nuux waxay ahayd muddo 10 qarni ah, sida ibnu cabaas radiallahu canhu inoo caddeeyey. 10kaa qarni dadka waxay ku sugnaayeen diinta islaamka iyo islaamnimada iyo toosnaanta. oo alle wuxuu leeyahay kaana annaasu ummatan waaxida, dadku waxay ahaayeen kuwo hal diin ku sugan, diintaas oo diinta islaamnimada. fabacatha allahu nabiyiina mubashiriina wamundiriin, markaas ayuu alle soo diray rususha oo ah kuwo xaqa ku bishaareeya, dadka wanaagga ugu bishaareeya, qofkii ilaahay jannada ugu bishaareeya. ambiyadaasoo haddana dadka u digayo cadaab iyo caro alle uga digayo. marka aayadda waxaa ku cadday marka biniaadanka asal waxaa u inay islaam yihiin, muslimiin inay ahaayeen asalkoodii hore. waxaa kaloo nebigu inoo sheegay inagu caddeeyey xadiis uu leeyahay nabigana calayhi salaam alle uu leeyahay innii khalaqtu cibaadii xunafaa, addoomadeyda ayaan abuuray iyagoo dhaqamada adduunka jiro dhanba iskaga soo leexday. fa atathum shayaadiintii baa u timaaday fajtaalathum can diinin, diintoodii bay ka qaseen, diintoodii bay ka kala darteen, diintoodii bay ka hadlayeen. waxaramat calayhim maa axlaltu lahum, waxay ka reebeen oy xaaraan ooga dhigeen wax walba oon aniga u xalaaleeyeen u baneeyey. waamarathum shayaadiintii insigii waxay ku amreen iyo biniaadankii in ilaahay ay u shariig yeelaan. haddaba ummadda markaas 10kaas qarni islaamnimadaas bay ku sugnaayeen. mar walba oo ummaddu waddadii ilaahay u jeexay, manhajkuu ilaahay u jeexay ay ka leexdaan oo ay ka baydaan oo shaydaan uu hoggaanka u qabto, abu alle subxaanahu watacaala wuxuu soo diri jiray rasuul laleeyahay rasuulow kac, dadka iyaga waddadii alle caradiisa bay cagta saareen, kac badbaadi oo waddadii saxda ahayd ee toosnayd dib ugu soo celi. diin walba oo xag alle ka timid oo rabbaaniyana waxay ku taagan tahay 2 tiir. midda koowaad waa in la garto xaqiiqada ilaahnimada. ilaahnimadu waxa weeye waa ilaah cidda awoodda iskale,
awood oo dhanna alla gacantiisa ayay ku aroortay marka qofku diin walba waxay ka hadashaa marka xaqiiqadaas yaa iskale ilaahnimada yaa gaar u leh allana wuxuu leeyahay huwa alladii fi samaa ilaahun wa fil ardi ilaah ilaahay xagga ee samada aaga kor isaga ilaah ka macnaha isaga laga dambeeyo amarkiisa la qaataa wuxuu sheego la fuliyaa allana isaga ilaah ka oo bini'aadankaas cid la rabo inay u adeecaan u hoggaansamaan waa isaga arrinka labaad oo diin walba alla soo diray ku taaganta waxaa weeye xaqiiqatul ubudiyya adoonnimada maxay tahay yaa la rabo in adoon loo noqdo qaabkee cid adoon loo noqonayo adoon lagu noqonayo arrimahaas haddaba qisadii nabi nuux calayhi salaam markii la fiiriyo quraanka ilaahay ilaa 20 suurad bay ku soo aroortay 20 suuradood 10 suuradood ka mid ah waxaa lagu sheegay magaciisa oo kaliya beenama 10 suuradood oo kale يعني قصون كيس الله ورمي قاب فافاسنا بالبلارن أو لكان إليه يقاب مرسي كوبان الله هذي هذا طبعا كسورة قصة على قصة النبي نوح لما أنتود وقرآن مكية أو حلي نبينا عليه الصلاة والسلام ومكجوي أي سورة هذه السودين تاسو معنا هي القرآن كسودين أو نتوسنا يعني تلمامته أوليه القرآن كان مركز كسر وحاول تلمامته أوليه مركز قصوين كأوكينيه وحلو كينيه وحاول إن العداية ضد كان الله شيء القرآن كان حق الله إنه كيمد نبي محمد رسول المديسة إنه يسوانتها أو يدبتها وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.